wasiirka wasaaradda gaadiidka badda dekedaha iyo waliba la dagaalanka burcadbadeedka ee dawlad goboleedka Puntland Injineer Saciid Maxamed Raage oo socdaal shaqo ku mariyay qaaraddan Yurub ayaa maraan kula kulanay magaalada Kassel waxa telefishinka caalamiga ee Cable TV uu weydiiyay socdaalkiisu waxa uu daaranaa naadiyaad waa ma santahay Cable TV waarun waxaan maalmahan joogay qaaradda Yurub hase yeeshee waxaan u joogay caafimaad laakiin hadda dhawaan caafimaadayo kulliba waxaan u maleynayaa inuu mid hadda shaqo soo gudayshay mar kale ayaa Injineer Saciid Maxamed Raage wasiirka gaadiidka badda dekedaha iyo waliba la dagaalanka dawlad burcadbadeedka ee dawlad goboleedka Puntland ayaan weydiiyay shir uu kaga qayb galay jasiiradda Qubrus waxyaalihii ka soo baxay runtii shirka Qubrus wuxuu ahaa bisha 12keedii ilaa 13keedii waxaana lagaga hadlayay arrimaha la xiriira sidii loo adkeyn lahaa ama hore lagu sii wadi lahaa la dagaalanka burcadbadeedka loogana howlgelin lahaa birriyada sidii hawshii loo gudbin lahaa oo dadkii deegaanada loogu degi lahaa iyo maamulada sidii wax loola qaban lahaa marka arrimahaas uu badnaa ilaa 175 dawladood baa ka soo qayb galay runtii wuxuu ahaa mid maaragtay hadda aad moodid inay qolada reer Yurub ay rabaan inay dalka gudihiisa wax ka qabtaan gaar ahaan dawladda dhexe iyo maamulada goboleedka ka jira dhanka kalena wasiirka gaadiidka badda dekedaha iyo waliba la dagaalanka burcadbadeedka Injineer Saciid Maxamed Raage ayaa waxa uu aad u soo dhaweeyay ku dhawaaqista xisbiga cusub ee ay ku dhawaaqeen madaxda uu hogaamiyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ku dhawaaqida xisbiga waayo waxaan 14 sano sugaynay ujeedadii ugu horeysay oo Puntland loo dhisay ahayd in markii axdiga la sameeyay in looga gudbo xisbiyo marka waa arrin maaragtay taariikhiya maanta arinta dawladdu ku talaabsatay runtii waxaan noo maleynayaa waa xisbiga ugu horeeyay oo la diiwaan gelin doono kuwa kalena insha Allah way ku daba jiri doonaan waxaan jecelahay in loo fahmo in maanta ciddii xukun doonaysa ay ku tartanto xisbi laguna dhaqmo habka axsaabta badan oo balaadiyada ay ku dhaqanto aanse laga dhigin mid qabiil waxaan ka gudbeynaa waa qabiil waxaan u gudbeynaa maaragtay dawlad maaragtay ama mid deegaan ha noqoto ama mid dhexe ha noqoto ama mid gobol ha noqoto ama mid dawlad gobol ha noqoto cidda ha noqotee waxa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii ragii ka soo shaqeeyay walaal aan kamid ahay laakiin waa arrin maaragtay aan ugu oran karo waa guul hadda Safaxa Jaadan Haarun telefishinka caalamiga ee Cable TV Jarmalka